السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada أحبابي waxyar ayaan rabaa inaan ka hadlo hadii Ilaahay yiraahdo. Soo dhawaada أحبابي. insha Allah kuma dheeraan doono hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala raali ka noqdo. waxyar baan rabaa hadduu Faado Maxamed soo dhawow, Caaisha deeqow, nuuro kulligiinan Axmed kulliga soo dhawaad. baabi waxaan rabaa waxyar inaan ka hadlo hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni intuu iga garansiiyey inta garaadkayga inaan ka hadlo anugu kusii dheeraanaynin. waxa aan rabaa inaan ka hadlo waxa ay tahay waxaa social media dhex yaacaya maalin walba oo aan aragnaa gabar Soomaaliyeed oo maradii laga soo qaaday oo la soo qaawiyey. haddaba walaalayaalo, gabdhaha iyo gabadhan already waa loo gafay sharafteedii iyo magaceedii iyo waxeedii dhammaan, laakiin yaa ka sii daran dadka u malaynaya, ragga iyo dumarka u malaynaya gabadhan inay u hiilinayaan. ilma adeerayaalo, gabadha uma hiilinaysaane waa ka hiiliseen. gabadha ama dumarka nuuc kasta oo ay tahay, haddaa u malaydeen gabadha inaa u hiilinaysiin, uma hiilinaysiin gabadha ee gabadha waa ka hiiliseen. sababtoo taa gabadha waxaa barteen dad aan aqoonin oo aqoon ah u lahaydeen. gabadha maskiinta sawiradeeda walaalayaalow social media uga daaya. dhaha ninka gabar soo qaawiyo horta gu ma jirtid, kowdhe gu ma jirtid. gabadha haddaad la sheekaysata, ragga iyo dumarku waa isu shukaansan jireen, way wada hadli jireen, yacni way jiri jirtay in la waxyaabo laga wada hadlo. laakiin gabadhii mar allaale iyo markaa gabadha la hadasho oo telefoon aa u dirto oo lacalla aad rabto gabadhan in aad wanaag ka raadiso, haddaa isla markiiba gabadha ku boobsiido naa marada tuur, naa lugta kor u qaad, naa kan yeel, naa xagga yeel, war waxaasoo kaleeta ina ragoo wax fiican ma. war gabdho way idin dhaleen oo way idinla dhasheen. horta gu maba jiraba. ninka gabar inta soo qaawiya social media soo dhigaya, horta gu ma jiro. ninka gabar caayana gu ma jiro. gabar way idin dhashay, way idinla dhasheen. waa ku salaamay xasan walaalkay soo dhawo. maxay ahaatay ninka gabar soo qaawinaya ee marada ka soo dhigaya ee social media soo dhigaya, horta ninkaasoo nin ma tihid, nusqaanaata gu'na ma jirtidaan ku dhahay. kowdhe gabaray adigana midaa kuleeya maantayto aaladahan la iska arko oo maxay ahaatay baalkii ii sheeg maantayto wada noqday adoo maxay ahaatay ku jira yacni dan ayaa xatana cod lagaa duubaa, wax walba lagaa duubaa. waay aad nin aan ku qabinin een kaagii ahayn kuwii la qabay oo xaasaska ahay oo guryaha laga duubay oo raggooda aamineen, kaasuna waa dayuusna ilaahay subxaana wa tacaala isagaa ku sheegay qur-aankiisa inuusan xataa jannada gelaynin. janno uu galay iska daaya, riixeeda xitaa inaan la tusaynin. marka waxa yarkaan raba inaan ka hadlo waxa ay tahay, inta qaadataan ka daaya gabdhaha aad maryaha inta kasoo dhigtaan soo qaawinaysaan, social media aad soo dhigaysaan, horta iska daaya ina ragow. wataaniyan dadka inta gabadhii ama haweenaydii la soo qaawiyey, gabadhan miskiintaa la qaawiyey, gabadhaanaa maradii laga soo qaaday, gabadha adaaba sii ceebaynaya, adaaba sii maxay ahaatay baalkii isheeg walfina. maxaa u walfinee gabadha? maxaa u sidaa sawirkeeda u daa. sacdiye shaacir xabiibtaydii soo dhawo baay macaanto, boqoradeyda in adeer macaan. gabadhii adiga ayaaba sii ceebeeyey oo maradii kasii qaaday oo dhogortii gabadhii kusii ciyaaray oo sumcadda gabadhii kusii ciyaaray oo maxay ahaatay sharafta ka qaaday. gabarayse marka horeeto maxaa kuu geynaya adiga nin aad telefoon kula hadlaydo inaa maryahaaga iyo dharkaaga iyo gudhaha hadduu yira indhaha dhiig hadduu ka keeno, war kuwii la qabayoo gogasha jiifayaa laga duubay. macaadallaahi waaba dayuus xun oo maxay ahaatay oo qad kuu soo galay inaad maradaada u dhigato. see kuugu soo dhacday? xayaatadaada ilaasho. xishoodku waa iimaamka nuskiisa waaye. xishoodku waa wax muhiima.
maantayto waan kaa qaada walaalkay raage soo dhawow xishoodku waa wax aad iyo aad muhiim u ah qofka markuu xishoona waa qof iimaan leh waa qof yacni diin leh iimaankaaga xaguu kaa aaday sidee kuugu soo dhacdaa inaa maxay eetay waxaan soo nin aad telefoon iska aragteen wuxuu doona ha kuu sheego indhaha dhiigka ka keena hadduu rabo sharaf iyo magac iyo wanaag hadduu leeyahay gurigiina ha kuugu yimaado sharaf iyo magac iyo wanaag hadduu leeyahay walaalnimo iyo wanaag iyo gabar quruxdii loo mari jiray ha kuu maro war wallaahi oo bilaahi oo tallaahi gabdhow ogaada wallaahi nin ku arkay inuusan ku rabinin haddii aad wax kasta sheegto ma garate gabdhaha daaya war gabar way idinla dhalatay maxay heetay ninka gabar soo qaawiyo horta ma jirtid oo ma jirtid oo ma jirtid oo 10 sano kuugu celinaa ma jirtid wataaniyan haddaa gabadha aad soo qaawida gabadhaadaa la qaawina oo walaasha ayaa la qaawina oo maxay ahayd fadeexa yacni adaa gabar maxay ahayd baalkii ii sheeg ee soo qaawisa sooma soo fadeexaysay oo social media soo dhigtay berri way ku qabsane what's going around comes around way ku imaane way kaada gurigaagay soo gale way kaadaba imaane gurigaagay soo gale ina abti baad leedahay ina adeer baad leedahay walaal baa kula dhalato hooyo macaana ama aabba macaana kuu dhalay adigaa dhashay waaya gabar u qaawine war haggan xaggee xayaatadii raggii Soomaaliyeed ee sharafta iyo magaca iyo qiimaha lahaa xaggee aadeen ka aragtaba gabaruu soo qaawinayaa oo wada naa gabdhow adinkuna raggan maxay ahayd dulloobay ma barataan miya hello ayaan ama okay xabiibtii soo dhawow gabdhaha daaya gabdhuhu waa hooyo gabaru way ku dhashay gabaru way kula dhalatay gabaru way ku dhaxday gabaru wax walba ay tahay gabaru waa udub dhaxaadkii ma ahan in aad gabar Soomaaliyeed oo sharaf iyo qiimo iyo magac lahayd intaa soo qaawiso aa social media dhex keentaan waxaad samaysataan miyaad garan weydeen waxaad qabataan miyaad garan weydeen miyaa I think aniga waxaan u malaynayaa ninkaas inuusan hortaba jirinin oosan weli dhalan oo uurka hooyadii uu weli jiifo uurka hooyadii hurdo ninka gabar Soomaaliyeed inta maryaha ka soo dhigay soo ceebeeyay ama gabadhidan horta inuusan weliba uurkii hooyadiisu jiifaa gabaray maalin walba ku waana qaado midda maxay ahayd gogoshii maxay ahayd saddexda lagu qabay sararta jiiftay baa midkii doqonka ahay ee isagu ilaahay aan ka baqanaynin ee intuu qaato kaamara ka duuba boqolaal baa lahaaya macaadallahi waa midaan ku qabinine xayaatada iyo xishoodka aa ka tagteen Soomaaliyeed dhaqamada xataa wadamada shisheeyaha aan laga aqoono gaaladu ka xishooto adinkaa laydinku arkoo sameeyaan ee gabdhaha ka xishooda oo gabdhaha daaya oo gabadhan ilaa maanta ilaa xala wadaan sawiradeeda uga saara social media gabadha ilaahay quruxda iyo heybada ilaahay siiyay uga saara sawiradeeda dadka ragga iyo dumarka la kala cararayo gabadha waa la caayay gabadha waa la ceebay gabadha waa la caayay gabadha waa la ceebay adinkaaba sii ceebeeyay gabadhii adinkaa bulshada sii barteen gabadhii adinkaa maxay ahayd shakhsiyadeedii iyo yacni sharafteedii maxay ahayd midda yuusuhu inta waa gabar waa iska miskiin hadduu u qosqosla baay macaanta xabiibi wallaahi bilaa indhahan kugu kuushaa wallaahi maxay ahayd baalkii kanaa tahay yaa waxaaba hadda baranaba baby I love you wax kale taa aragtaaba maxay ahayd wallaahi raaga uurka hooyadiis waxaan u dhaha uu jiifaa waa doqon kala jira ninka gabar Soomaaliyeed ee walaashiisa ee gabar Soomaaliyeed inta soo qaawiya social media soo dhigaya wallaahi anikaas ma jiraan dhaha waxaan u dhahna uurka hooyadiis oo wali jiifaan waa wax yacni caqiide islaam iyo wax alla horta wuxuu haystaba malaha doqon aan doqon kala jirin waaye
waa doqon aan ku xisaabtaminin inay gabaru la dhalatay, waa doqon aan ku xisaabtaminin inuu beritoole ina habreed leeyahay, inuu ina eeda leeyahay, inuu ina habreed leeyahay, inuu ina abti leeyahay, inuu isagu beritoole gabar islaameed uu rabaa inuu u jilballaabto. markaasuu maxay tahay tuu ka dhalana yaa ka celinaya berri markay weynaato hana qaadanin. wuxuu gabar islaameed ku soo sameeyey what is going around comes around isagaa lagu samaynayaa. muxuu ka samaynaa marka, muxuu ka qaban karaa? gabadhaa aan arkay ee quruxda ilaahay siiyey ee xijaabka wadata, haddii shaydaan qalad ay ku dhacday oo maxay ahayd baalkii mid ay aamintay uu edab darro ku sameeyey, walaalayaalo ilma adeerayaalo gabadha yartaa uga bixiya social media maxay tahay sawiradeeda aa wareejinaysaan oo kuwan gabadha waa la xumeeyey ku hay, adinkaa gabadha dadka sii baray, adinkaa sii wareejiya. maalin ilaahay keena midaa gowracdaan iyo maxay ahayd waxaa ka dhigteen gabdhihii iyo midaad walfisaan ayadoo qaawan. ilma adeerayaalo naga xishooda idin dhahna nimayahow. raggii Soomaaliyeed ee qiimaha iyo magaca iyo sharafta iyo haybadda lahaa xaggee ka baxeen? dalkii naga soo cayrisateen, qurbo iyo dhibaatana badeen, rafaad iyo silacna badeen, haddana gabdhiyo qaawanaa social media noo dhex wadaan. war naga xishooda idin dhahnay. naga xishooda idin dhahnay. ee gabadhan yartaana qof kasta oo gabadhan masawirkiisa beejkiisa ay u saaran tahay ka bixiya idin dhaha walaalayaalo. ilaahay ka cabsade gabadhan yartaa uga bixiya social media sawirkeeda. hooyaa dhashay, ani hooyaan ahay, gabar baan dhalay. maxay ahayd ma aan rabo gabar Soomaaliyeed mid aniga ila mida ee hooyo ah foolxumadeeda in la wareejiyo ma rabo. mida aniga gabadhaydoo kaleetana ma rabo foolxumadeeda in la wareejiyo. gabar yaroo gabadhaydoo kaleetaa waaye, ka bixiya social media. ilaahay baa idinku dhaariya gabadhaas yartaa social media ka bixiya sawirkeeda. foolxumada iyo ceebta aad gabadha la daba kacdeen ka reeba gabadha oo ka bixiya gabadha yartaa, because adinkaa dadka sii baraaya. abaa naciimo wallaahi bilaayma wallaahi jirka ay xanuunay ilaa maanta dhan. wallaahi hadda dhawaan shaqo ka imaaday, gabadha yartaa markaa arka wax walba laga qoraayo oo wax laga misa, haddana dad baa wacay war daa wacdaan wacista aa waceydaan waaba kusii qaraacantayba. hadday doqon la sheekaysatay oo doqonkii ay ku sambari raxatay oo shaydaan meeshii maxay tahay waxyaabaha la diiday in lagu isku kaliyoobaba oo maxay tahay oo meeshii shaydaan ka imaaday uu shaydaankii ka sareeyay, hadduu isagu gabadhii uga faa'iideeyey uu uga faa'iidaystay jaaniska yarka ah. waraa nimankan oo qurbaha jooga oo ayaga dhanba maxay ahayd nin horta wax bartay oo caqli leh oo sharaf leh aniga waxba kama sheegayo. ani aabba i dhalay, adeer baan leeyahay, ina adeer baan leeyahay, maxay ahayd wiil baan dhalay, wiil islaameed baan u dhaxay. waa intaba waa rag iskumana quuraan waxaasoo dhan. sharaf iyo magac iyo haybada ay leeyihiin. marka ninkii sharaf leh ee intaasba ah aabe iyo walaal iyo abti. gabar baa waxaa la yiri waxaa ka hor yimid baa la yiri ruwaay, waxaana la socdayaa la yiri walaalkeed iyo ninkeedii iyo wiilkeedii. markaasuu ruwaaygi wuxuu yiri baa la yiri gabarey habeen walba nin baa la iigu xiraa geedka oo aan cunaahay, 3 rag oo kula socda mid waa inaa isiisaa. gabadhii waxay fiirisay wiilkeedii, waxay tiri wiilkan aad 9 bilood uurka kusoo siday maanta ruwaagaa siin kartaa. wiilkii waxay fiirisay maxay tahay odageedii, markaasay tiri odaga haddaad siiso ma agoon baa kori kartaa, ma wiilkaagiiyo aabba la-aan noqonayo. haddana waxay fiirisay walaalkeed, markaasay tiri ma walaalkay baan dhiibi karaa? waa maya. markii dambeetay waxay ku tiri dhurwaayo haddaadan na daynaynin weli waa la helaa, wiilna waa la dhalaa, walaalnimo iib baa lagu waaye. ninka iyo wiilka yacni walaalkeed suu qaali ugu yahay, gabar walba wiilka la dhasho way jeceshahay. dhurwaygii markuu dayn diiday bay tiri weli waa la helaa, wiilna waa la dhalaa, walaalnimona iib baa lagu waaye.
marka walaalayaalow gabdhaha way idinla dhasheen. Aamina muuse boqoradeeda in adeer macaan soo dhawow. waxaa ka hadlaya gabadha yartaa miskiinta ah oo mareynta laga soo qaadiyo maalin walba gabar inta la qaawiyo social media la dhex maraan wax yar rabay inaan ka dhaho. marka walaalayaalow gabdhuhu way idinla dhasheen, wayna idin dhaleen. naga xishooda. nin sharaf leh annaga ma haysano. wiilashu sharaf bay leeyahay. qofkii ninkii sharaf leh oo magac leh oo annaga waxba kama sheegayno. dadkoo dhanna ma wada xuma. marka gabadhaas yartaana dadka oo ay beejajkooda ku wada jirto oo dhan gabadha yartaa adinkaa sii dilay. haddaa u malaydeen gabadha in aad wanaajiseen ama gabadhan keliya maahana gabdho badan haddaa u malayseen gabadha inaa maxay ahayd colombos inaad ergacali soo dhawow. waa aad disheen. sumcadeediyaa ka disheen. dadaan aqooninaa barteen. kuwa kaleeta sawiradeedii sii qaatay. waxba wanaaga uma adnaan gelinina. dayuuskii soo keenay oo gabadha wax ka duubay wuxuu duubay ani ma arkinina meesha qoraalada leen wada arkay waana ka xumaada gabadha yartaa quruxda badanoo inta beejkeedii xataa la galay wax alla wixii sawir ugu jiro dhan la iska soo kulli badiila inta loo qaatay iyo garweyn aa la soo qoday. saa banaanka la keenay sawiradeedii waxeedii dhammaa. waayo beejkeedii inta u gasheena badiilka iyo garweynta ugu qaadateena usoo qodeen beer maa limayseen. gabadha ka xishooda. ilaahay ka xishooda. gabadhan yartaa iska daaya. gabdhaha soomaaliyeed iska daaya. waxaa gabdhuhu waa masaakiin ma garateen. walaa aamin axya way waa abaaga qofkii maaragtay ciil waa walaahi gabar yaroo miskiin oo aad u qurux badan ani hooya ah meela ay xanuunaysa gabaraa dhalay waa ila dhalatay. walaashay qof xumeeye ma rabo. gabadhayda qof xumeeye ma rabo. ani mid i xumeeye ma rabo. gabdhow adinkana waxaa idin leeyahay kuwii xalaasha lagu qabay ee waayahan dunidii way xumaatay. raggii hore ee asturnaay ee maxayta magaciisa ilaahay maanta ma joogaan inta badan. nin ilaahay u naxariistay oo ilaahay uu iimaan siiyey ma ahan. nin alla u naxariistay oo ilaahay iimaan siiyey ma ahane. raggii dhan waxay ku wada bateen dhan inay gabdhaha ceebtooda iyo cambaartooda meesha ay wada keenaan. inay gabdhaha suuqa soo waraan. tii ayadu is wartay taas waa ayadu waa gooni. laakiin inaa gabdhihii inta la qaatay looga faa'iidaystay waqtiga iyo wacyiga jira. ha uga faa'iidaysanin gabar yaroo masaakiin ah oo waqtiga iyo iyo waxa jira ha uga faa'iidaysan. baasaboor baas oo qalalan oo wax allaala waxaad ku qabanaysa aysan jirin ha uga faa'iidaysan gabadha yartaa masaakiinta. ha uga faa'iidaysan duruufaha jira. ha uga faa'iidaysanina ina ragow. ha uga faa'iidaysanina gabdhaha yaryarka masaakiinta ah. taad mustaqbalkeeda ku cayaarayso oo aad mustaqbalkeeda baabi'inayso mustaqbalkeeda jijibinayso oo aad sharafta ka qaadayso social media ku dhex jiidayso adoo raganimo sheeganaya ayaad maxay beriyaad dhalay ayadoo kale. gabdhowna mid baa idin leeyahay. midkii ku yidhaahda hi honey baby aanba waxaan u malaynayaa wax cusubayba nugu tahayba. hillaac noo baxay miya yaa hillaac noo baxay mayba noqotaba baalki ishe baby I love you oo been ah. yaysan idiin noqonin nimankan mataqaanaa kuma qaba kuwii la qabay oo guryaha loo joogay oo ragga ahay ayaa naagahoodii kaamara ka wada duubay. ma garata ilaa qaliilan nin alla u naxariistay oo ilaahay uu xishood iyo magaciisa siiyamaan. nin inaad inta isku jilciso abbaay markaa cabaar la sheekaysta baby waa ku jeclahay marada rog inta rog maxaa kuu keenay aqri adduunbeelkan doofaarka gowsaha weyn lawaa kaasaa social media ku dhex wareejinaye. dayuuskan aan xishoonaynin waay aad adiga maryahaaga ugu dhigane. maxaa korkaaga inaad tusto maba ahan.
hadduu hadalkaaga uusan ku qancaynin oo maxay ahayd dhul dheer ka joogo oo shukaansi idin dhex maro oo waxba idin dhex martay ma ahan inaa maxay ahayd korkaaga tusto itus hadduu ku yiraa idiidaa tahay dhe bax dhawaryaa maxaan kuu tusaa sharci maasaa ku qaba ma ninkaagiya waayaa korkaaga u tusee midda kale dembi waay cawro waaye ceeb waaye gabdhow gabar walbay isgaarsiiya gabar walbay dhowrso inaan taagsanno inaan dhowrsanno danta ayaa waaye ragga nin waa bahal ma taqaanaa waraabaha hadduu xoolaha soo galo yur haddaa laga dhihinin xoolaha wuu cunaa nimankan yur haddaa la iska dhihinin waa ku cunayaan asxaanna ma laha waa inaa iska celisaa oo iska yuraysaa liibaan beenaaleya aniga i leedahay inaad akhlaaq xun tahay ya gabar islaameed in la qaawiyaan beenaaley ku ahay miya beenaalow ilaahay ka fogaado kaadibaha tahay bilaa akhlaaqaa tahayna gabar islaameed inaad soo qaawisaa aa beenaaley ku ahay miya ka leexa gabdhaha islaameed ee social media la dhex wada maan beenley ku ahay see ku rabtaa inaad gabar islaameed soo qaawiso ee social media aad dhex wado ee aad sawiradeeda wareejiso walaasha ayaa adna la qaawinaya ogow gabadhaadana waa lasoo qaawinaa berri mid aan ilaahay ka cabsanaynin ayaa qaawinaya mid gabar islaameed ninkii qaawiyey ee social media walaashiisa ee Soomaaliyeed waa joogan kuwa boqol nin xaaskiisa qaawiyo kan iimaan lahaynaa qaawiyey oo soo dhigay ma arkinin miya liibaan boqolaa joogta nin aniga sharaf la waxba lagama sheego kan dayuusaha qaawiyey kan ilaahay ka cabsanaa qaawiyey kan shaydaanku u waxyoodaa qaawiyey xaaskiisa waana buuxaan ha ka xumaanin wax jira waaye dayuuskaas oo kaleeta gabadha soo qaawiyey ayaa qaawiyey waana buuxaan wax marag aniga iskama hadlaayo haddaadan arkinin hadda waa buuxaan way dhacday boqolaa la keenay haddaa adi ilaahay iimaanku siiyey oo qofku ilaahay iimaan siiyey ma samaynaayo laakiin qofkan iimaan ilaahay siinin oo shaydaanku ka waxyoodo oo shaydaanku qaalib ka noqday yes waa sameeyeen waana samaynayaan nin ilaahay iimaan siiyey nin ilaahay ka xishoonaya nin maxay ahayd akhlaaq leh nin og diinta islaamka nin xaaskiisa sharaftiisa og nin maxay ahayd baalkii asaga sharaftiisa dhowranayo ma samaynayo taas waa wax boqolkiiba boqol la og yahay laakiin ninkii intaas ka tallaabsaday waa sameeyey cafwan wuu sameeyey marka waxaa waaye qofku in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsado waa wax muhiima walaalayaalow intaas bisaa rabay inaa ira dadka gabadha yartaa meesha wareejinaya uma aadnaan asxaan uma aadnaan samaynina gabadha ceebaheediiyaad sii fogeydeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkii hal ceeb astura 12 ceeb uu asturaa gabadha yartaa oo dhalinyarada ah oo maxayta Soomaaliyeed sawiradeeda uga saara social media dadkiina wareejinaya sababtoo ta ceebteedii foolxumadeedii aad gabadha sii faafiseen waxaad sii faafiseen gabadhii dadaan aqooninaad sii barteen gabadhii waxaad sii barteen maxay ahayd gabadhii waxaad sii barteen maxay ahayd adduunya ku sii faafiseen haddii wax la dhahayo la karbaashayo ninkii dayuuska ahay ninkii dayuuska ahay ee gabadha saan u galay in asaga la ceebeeyay ahayd oo la yiraahdo haddii maxay la yiraahdo asaga la karbaasho laakiin ma ahan gabadha inaa maxay ahayd qaladkay ku dhacday oo shaydaankii ka waxyooday
oo uu ka waxyooday haddii haddana mid kale loogu sii daro waa dhibaato. cafwan liibaan cafwan aqe marka walaalayaalow waxaa waaye insha allah biidni alkariim intii ani waxay iga ahayd waano iyo walaalnimo iyo islaamnimo iyo ilaahay dartiisa. gabdhahow annagana maxay haytay aan taagsano. qof walbow ogow, gabar walboy ogow, maanta social media ninka ku jecel ee ku raba ee sharafta leh ee magaca leh ee guur xalaala kaa raba gurigiina iyo reerkiina iyo wanaag ayuu kuula hadlaa. ninku yiri marada kor u qaad iyo maxay ahayd xagga magaciisa iyo xagga magaciisa sharaftaada inuu meel uga dhacmaan inuusan wanaagaaga rabin awgeed. baby wallahi diyaaradahan ku saaraya waa been. baby wallahi markabaan ku saaraa been waaye. babydan been waaye. babydana waaba nagu cusub tahayo waxaan u malaynayaa maxay ahayd waa u bognaa u malaynayaa. marka waxa waaye ceebaha lama faafiyo. qofka si kale u waani, qof kale si kale wuxuu dhe ha ka samaynin. haddii adiga gabaray istiri telefoonka ninkan wuu kugula hadlayaa. ninka hadduu ilaahay ka cabsanayo nin ilaahay ka cabsan yahay gabadhan shukaansi ka rabo telefoonkaas bis uu kula hadlay uu ku ekaanaya. laakiin gabadha hoos uma sii raacayo afaaraheeda iyo maxay ahayd waxeeda. ma garatay? laakiin midda kale telefoonkaanu igula hadlay mid kaleetaa shaydaanka hareerta u yaallow kaaga duubaye. kan hadduu kugula hadlaye asaga naftirkiisa u kaaga duubaya. marka wallaahi walaalo abu zubayra ma aqaano aniga runtii waxaan ka xumaaday keliya gabadhan iyo gabdho badan oo maxay ahayd tii ayadu isqaawisay oo xishoodkii ka tagtay oo diintii ka tagtay oo dhaqankii ka tagtay oo maxay ahayd wanaaggii ka tagtay oo maxay ahayd waxay doonto ku hadlayso. taas ayadaa maxay ahayd qasatay waxeeda waxba lagama dhihi karo in ayadaa la yiraahdo maaragtaa ilaahay ka baq oo waxaan islaamku ma ogola. dhaqankana ma ahan wanaagana maxay ahayd waxaanu ma qabne in si kale loo waaniyo. dabcan laakiin waxaan ka xumaaday kuwa maxay ahayd wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu gule marka in gabadhihii inta lasoo qaawiyey halkan maxfalka lasoo dhigay ee la wareejinayo taas wax fiican maaha. ragow aan kala xishoono. dumarow adinkuna ilaahay ka cabsada oo maxay ahayd laba habeen keliya midkaa shukaansataan. nimankan bahal waa bahal. ma garate? haddaada iska celinina wallaahi bilaa barqacadoo ku dardaraya ee iska celi. waxaa iskaga celisana waa inaad ka dhowrsataa. waa inaad ka dhowrsataa xadka lagugu talagalo ilaahay subxaanahu watacaala kuugu talagalay ha dhaafin. inta labadiina haddaad kala tihiin laba qof oo maxay ahaydtay oo aad qof kaa dheer mid kaa dhowba murxumkaaga ninkan hadduusan ahayn ka dhowrso. ka fogow. yuu ku cunin. ma garatay? hadduuba ku geyo oo ninku geyo uu yahay inta lagugu talagalay ha u dhaafin. aakhiro iyo adduun waxa waaye waa ku seegaysaa. haddii inta lagugu talagalay aad dhaafto waa ku adduuniya aakhiro seegay. ilaahay subxaana watacaalaana wuu kugula xisaabtama because waa aad weyn tahay. korkaaga ha u ogolaan. salaanta ha u ogolaan. qosolka badan ha u ogolaan. waxa xataa loo diiday hadallada jijilicsan oo ilaahay subxaana watacaala xigmad waaye oo hadallada jijilicsan oo aad u jilicsan inaan ragga ku dhahno waxa ilaahay subxaana watacaala uu nooga xarimay oo loo diiday waa waxaan waaye. waxaan dhibaatooyinkan waaye. because the more hadalla jijilicsan oo aad iyo aad maxay ahayd ninka qalbigiisa ku dhaca u tiraahdo the more dhibaata ku soo gaarayso ninkan ilaahay ka cabsanayna. sababtoo taa ninkaagi ma ahan murxumkaagi ma ahan. ma garatay? kan ku hadal macaan iyo hadal jilicsan haddaa rabta kan ilaahay subxaana watacaala uu ku xalaaleeyay oo guriga kuu jooga
kaasaa laguu baneeye ku dheh ku kala ha ku dhihin marka insha allah biidni ilkariim axbaabii intaasaa idin dhihi rabay waxa waaye ka dheeraada aan ka dheeraano xumaanta aan ka dheeraano waxyaabaha badan aan isfarno wanaaga salaadeyda maqribka iisoo gashay waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cafwan kulligiinba walaalahayga